madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Austria iyo Canada ee Soomaaliya. danjiraha jamhuuriyadda federaalka Austria Christian Fanler oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan ugu siday dhigiisa dalkaasi Alexander van der Bellen ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadista xiriirka labada dal isagoo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu mahad celiyay soo dhaweynta diiran. sidoo kale danjiraha cusub ee dalka Canada Marwa Lisa oo waraaqaheeda aqoonsiga u gudbisay madaxweynaha ayaa sheegtay sida ay ugu faraxsan tahay inay ka mid noqoto bahda diblomaasiyiinta ka howlgala Soomaaliya. dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay ugu warbixiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya ugu go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qabsiga ee kala dhaxeeya dalalka caalamka. madaxweyne Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub uga hambaliyay xilalka loo magacaabay waxa uuna sheegay in ay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta ka guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo danjiraha u matali doona dawladda Austria jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Christian Fanler. madaxweynaha iyo danjiraha markii warqadaha aqoonsiga laga guddoomay kadib waxay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi oo ay yeeshaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Austria. waxyaabihii madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen waxa ugu muhiimsanaa sidii dawladda Austria ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dadaalada midowga Yurub oo qayb ka tahay oo ku bixiyo amniga iyo dawlad dhisidda Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee European Union uu toos u siiyo dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga maanta ka guddoomay danjiraha dawladda Canada u fadhiyi doona jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Marwa Lisa Stadelborg. danjira Lisa waxay madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday madaxda iyo dawladda Canada. madaxweynaha iyo danjirahana waxay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya dawladaha Canada iyo Soomaaliya oo soo jireen ah. runtii sidaan ognahay Canada iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya xiriir taariikhi ah. Canada waxaa ku nool jaariyad Soomaaliyeed oo ballaaran waxayna ka mid tahay dalalka gacanta u fidiyay Soomaaliya sanadihii ay duruufaha ku jirtay. inkastoo Canada ay 30 sano u dambeysay kaalin mug leh ku lahayd dadaaladii beesha caalamka ee Soomaaliya loogu gurmanayay iyo taageerada arrimaha bini'aadanimada, haddana danjira Lisa waxay runtii xaqiijisay in dawladda Canada ay haatan diyaar u tahay gacan muglana ka geysanayso sidii loo abuuri lahaa taageero maaliyadeed oo ay dawladda Canada ku bixinayso arrimaha horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan geeyiga Soomaaliyeed.